Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhowaada saaxiibada ku xiran Guuleed Channel. Ramadaan mubaarak. Taqabbal Allahu minna wa minkum saalihal a'maal. Muuqaalkeena waxaan ku eegaynaa taariikh kooban oo ku saabsan dalka Spain. Haddaba ku soo dhowaada muuqaalkeena. Dalka Spain waa dal dhaca qaaradda Yurub, gaar ahaan koonfur galbeed ee qaaraddan, waxaana loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Federaalka ee Spain. Dalkan oo loo aqoonsan yahay inuu yahay dalka afaraad ee Yurub oo dhan ugu weyn, waxa uu xuduud la wadaagaa dalalka ay ka mid yihiin Faransiiska, Boortaqiiska iyo dalka Morocco. Waana dalka keliya ee Yurub ku yaala xuduudna la wadaaga dal ku yaala qaaradda Afrika. Tirada dadka u dhashay dalkan Spain waxaa lagu qiyaasaa wax ka badan 47 milyan, waana dalka shanaad ee Yurub ugu dadka badan. Caasimadda dalkan waxaa lagu magacaabaa Madrid. Luqadda dalkan lagaga hadlo waa luqadda maxalliga ee Isbaanishka. Gaadiidka dalkan waxay isku dhaafaan dhanka midig, waxaana laga adeegsadaa lacagta Yurub ee Yuroga. Dalka Spain waxaa la aaminsan yahay in waagii hore la odhan jiray Hispania, waxaana la aaminsan yahay in markii ugu horeysay ee dalkan la dego ay ahayd 35,000 oo sano ka hor. Markii ugu horeysay ee la aasaaso dowladnimada dalka Spain waxay ahayd sanadku markuu ahaa 1479 miilaadiga. Dalka Spain oo ay soo mareen maamulo kala duwan, nidaamka dimuqraadiga ee hadda ka jira waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa 1978. Marka taariikhda dib loogu laabto, dalkan waxa uu ka mid ahaa waddamadii Islaamku uu soo gaaray qarnigii 8aad. Spain waxay ka mid tahay dowladihii dunidan dalalka ku yaala soo gumaystay. Dalal badan ayaa loogu hadlaa luqadda Isbaanishka, waxayna noqotay luqadda Isbaanishka luqadda labaad ee dunida dadka ugu badan ku hadlaan. Qiyaastii 500 oo milyan oo qof ayaa ku hadla afka Isbaanishka. Dalka Spain waa dalka 14aad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Dowladda hadda jirta ee dalkan waxbarashadu waa lacag la'aan, waxaana qasab ah in iskuul la geeyo oo wax la baro carruurta da'doodu u dhaxayso 6 ilaa 16 jir. Xagga diimaha markaan eegno, dadka ugu badan ee dalkan waa Masiixiyiin, halka Muslimiinta lagu qiyaaso wax ka badan 4%. Raashinka loogu jecel yahay dalkan waa maraq laga sameeyay hilbaha xoolaha oo dalkaasi loogu yaqaano paella. Xulka qaranka dalka Spain 3 jeer ayuu ku guuleystay horyaalka Yurub sanadihii 1964, 2008 iyo 2012. Dhinaca kale, waa ay hal mar ku guuleysteen Koobka Adduunka sanadkii 2010.